هديت النبي وينين تسمالين والبويني لبي طبعا كربيع الأول هسوقني سنة كوردن ويني مالك كستكو صلي مالك كستو حادو السمين كرتن النبي محمد عليه الصلاة والسلام السمين هديت هاي مالك تاسمية دين تكو صار أرتي واحد الله أمانة رجعوا مولد كالصومالي دو وحن كهلا إنما ما أنا دوايهن ما له لقول دقة ما تجيني كي أنسوق عني النقيني هذا إذا عده يوربعين تسوى لقوا قاضي يوم قالوا إصلاعني بابا معها كالصومالي دان كهلا بدأ يبيع برزنجي أنا وحلا قاضو شرك ميرموي marka bisha markay noo soo gasho yeyna noqonin bishii khilaafka ee ha noqoto bishii isjacaylka baa nabi sallallahu alayhi wasallam isjacayl ayuu inoo la imaaday kulligeen Soomaali hadaan nahayna bal mid u weydii ruux aan nabiga jeclayn inuu kuma jiro nabi maxamed maalin ku noolaa wixii ilaahay loogu dhawaan karay oo jiro diin aha waxa unba maantana diin noqon kare wax ka dambeeyay ummadan diin uma noqon karo munaasabad oo dacwo aan dadka nabiga kaleey salaam bareena ka dhigano سيريس laga sheeg wixii muharramaad kan ka ilaalino waxa weeye khilaafku halkaas uu ku suulaya balse culimada oo diidan inay ka qayb galaan xafladahaas ay tagaan ee dadka tusaan xumaanta la baabay hadii kala saanay maalin kasta isku haasanayna qulubtii ay kala tagtay su'aasha isweydiinta le marka ma aha nabi maxamed weynayntiisa kama hadlayno qofka muslimka ka doodana ku gaaloobaya waadix soo taasima qofka muslimka ee nabi maxamed weynayntiisa ka dood galiya ku gaaloobaya waa maxay markaa ciladu xagee ka jirtaa ciladu waxay ka jirtaa maalinta in la xusaamo tahay qaab loo weyneynayo isku wada fursanay inaynu weyneyno laakiin qaababkii layna faray inaynu nabiga u weyneyno maalinta in la xusaamo ku jirtaa nabigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin مذاهبتا أفرتا علماء إنه كنا قانينا ما يحسن هذا حقيقة تمي وادم بين المسلمين تبرد أي اللي يماد تاريخي أنا ضبط إمام المغريزي في كتابه سوق الطغرانيو waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dawla alfaatimiyya markii ay joogtay Masar dawladii ka talinaysay Cubaydiyiinta loo oran jiray qolo Shiica ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso نبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فاطمة حسن يا حسين يا بغرك شنتها إنه النغضة وحل حصية لحدا إنه النغضة وحل حصية دولة دي شيعة هيد بالردي مركي الردي نمكي ما يشغب صدي وعلى ورشنت الشيعة أنا نقطور النبي أنا أسكح حسن شنتين وكت كان نوي حسين علماء وقتها وحي كدم بيسي وحي سويديان والمسألة دني ما كمت هاي وحي دينتو إنه شيء يسمى كمان مدها علماء برضو حي هذا ورني بكم أجرت هذه النبي قال حصوا كاسي علماء بدن إنه حيلين وروحني مسؤول لكن أنا هالكلام كل شيء يا وحاصرنا كبحثا هذا ما قشوا مسألة ده النبي قوم الصمينين أما صحابة دي ما الصمينين كما الصمينين سؤال بنكويدينية نبي محمد sidoo alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nabi maxamed uu sameeyay dhamayso aan sugu nimaadna bidca markaa saxiixa ma maalintaad intii nabi maxamed ka adkaato aan isweydiino waxa soo hadhay ma banaantay mise ma banaana laakiin intiiba hadaanad haynin waxba bidca ka warramay idan nabi maxamed maalin ha u yeelina maalin walba ku salli alayhi salaatu wassalaam inaad sanadkii maalin sugto oo tiraahdo maalintaas aan ku sallinaya maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintu exactly nabiga ku dhashay taariikhdii carbeed ee hore waxay u dhigantay sidii taariikhdii Soomaalidu baadiya ku dhalata siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalinta ka dhashaan way calaamadsan jireen waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay khamiis buu dhashay jimco dhashay iyo axad buu dhashay taa Soomaalidu ma laha way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen gugi ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugi reer hebel lagu duulay gugi hebel dhintay gugi dayrta badnaa gugi cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nabi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidi ma garanaysaa
sanadkii waxa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taariikhda la raadinayo war sanadkaasi halkuu kaga beegnaa iyo halkaasuu ku beegnaa iyo halkaasuu sanadkii maroodiga ugu dhashay ayay culimmadu yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal ahay maalintana isniinta rabiicul awal qola waxay yidhahdeen 12 ahayd taariikhyahanada hadda jooga waxay leeyihiin marka dib loo baadho 12 isniinba maaha nabiguna wuxuu yidhi isniin ma dhashay soo maaha haddaad dib u raacdo bay leeyihiin 12 isniin ma haysee la yeelaya axad alxufaad wuxuu leeyahy war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharul aqwaal waa warka ugu caansan ee taariikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin la isku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weyne 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weyne maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u samee hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxa dilla ammaan arag anugu walaalka wuxuu weydiiyey mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam nacam fi mawdka bil kasta bisha mawlid markay timaa bisha mawlid sanad kasta ay ku jirtaa rabiicul awal waa imaaysa sanad kastana saana meeshan lagu weydiiya inta 20 sano halkan wax ka sheegayna maalin kasta waa la weydiiya waan dhowr jeer noo sheegnay ra'yiga mushkiladana haysto waxay tahay qof kasto inuu ra'yigiisa ku adkaado rabaa diinta adkaant ma aha diinta waxay leedahay qawaacid iyo asaasiyaad leedahay wax waa isku qalaafi karnaa laakiin waa wada socon karnaa khilaaf khaasatan markuu yahay khilaaf oo qaabil mas'alada deeta mas'ala qaabil lilkhilaaf mas'ala oo la isku khilaafi karo mas'alada mawlidka xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam la iskuma khilaafsano jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii ku tuhma ninka kale nabiga ma jeclid bal iimaanku ka mid yahay ninkaas oo xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam iimaan wey iimaanka ka mid yahay laba koox iskuma khilaafi karto waxa la isku haas waxay tahay xubbigaasee loo cabiraa bes xubbigaasee u cabirtaa ilaa xubbi kasta tacbiiru raba in la cabiro soo ma wasiiladee wadadee loo cabiraa la isku haya kaliya marka khilaafku waa iskhilaaf basiide waa la isku soo khilaafo ilaa iyo culimmada hore isku soo khilaaftay oo waa bidca idaafiya la yidhaahaa nabiga calayhi salatu wasalaam ixtafala nacam maalinta isniinta markii yidhi maxaa u soomaysaa daaka yooma wulidtu bihi bal nabiga calayhi salatu wasalaam nabi muuse oo guulaystay oo sanad kasta hadda waa la soomaa soo ma maxaa dhacay wuxuu ka arkay yuhuud oo dabaaldegaysa wuxuu yidhi annagaa kaga ooleysan wuxuu amray saxaabada inay soomaan marka cibaado inay tahay waa khilaaf kama taagno marka inay qofka ama sanad ha ahaato asalku waxay ahayd isniin kasta in la xuso nabiga calayhi salatu wasalaam khaasatan dadkeenaan yurub joogo annaga wasiilo oo dacwa inaan ka dhigana wey wasaa'ilka dacwada mawquuf ma aha wasaa'ilu dacwa wasiilada dacwada lagu gudbinayo tawqiif ma aha بلد كستو سيده طريقته دينته هذا صبع قار كبرتان قرآن كحفظي قار قرآن كوريك صوب بلاما قار خوريك صوب بلاما وحصل وسائل وسائل كان توقيفي معها مركا وسائل كا وأنا كهذا يرب أو بهنا والدعوية أو حوائنا مولد دقنوا فعنا أنا الأرجل عن قولين كوميونيتي كان هذا بحر مولد عن دقنوا ما حد داعي ودن محان جوجنا المها النبي كسين عليه الصلاة والسلام ما بكسايان marka wasiil dacwan ka dhigayna maxaa ka sheekeynayna waxa ka ilaalina wixii muharramaadka ahaa ikhtilaadkii iyo rag iyo dumarkii waxaas ina ilmaha kaga digin laakiin ina siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo shamaaishiisa aan barno oo nabiga akhlaaqdiisa aan barno oo aan barno siirada nabiga calayhi ahdaasta aan barno waqti aan waan Allah anahay ilmeen waqti Allah anahay haddaan asbuuc heli karno waa fiicnaan lahayd laba asbuuc waa fiicnaan lahayd sanad hadda weli waa fiican tahay sanad hatta aan bisha mawlid ilmaha u baxsanaat bisha kale maxaa dhacay wasiila waa wasiila tacallim xub nabiy waa nabigooda inay bartaan كريسمس يكسايان مرك ما تشبه معها وسائل كدعوة وحنير موقوف ما وطريقة أنا كهذا وح وناكسوي ولذلك المولد إفراط تفريد كل عقولنا بوري كرتال كاسيدي أو ضدك يبا وحلا نبي يابا الحسوسا ورنيك نيك أسبوع حسوسه هذا سنة حسوسته الحمد لله ده قال الله بس أنا كبعد بحسوس لا قارن وحبي كتر درين إيجانا كواني بكل بايان مولد لسكم الدبو ولذلك وحير وبنايا أنا بدعي إذا فيه خلاف قد وجرى أنا وحن كجر علماء ليس مولدك وأبنائي هي وصيل هذه لقديقة بشرط لك شروط معدة عيد يا لقديقة إنما الأعمال بالنيات عيد معها عيدها النبي لبع لقديقة مشكلته حاول ضدك مخالف إيجا هرتكو سمينا علده كبعد حكم ردايا حكم ضدك عيدها كدكتين هذه محاولة ضدك وشاك عيدها كدقنا هذه محاولة حكم عيدها كدكتين عيد الإسلام كزيادة إن قيدين تحملوه كرديك صحوي لكن هذا أفكو قليل كبعد هذا إنك حكم يسا حكمك أنا أقول الله شيء عيد يا الله يقدقن عيد وعيدين وي
waana soo aroortay munaasabad oo dacwo aan dadka nabiga calayhi salaam bareen aan ka dhigano siiridiisa laga sheego wixii muxaramaadka aan ka ilaalino waxa weeye khilaafku halkaas uu ku suulaya balse culimada oo diidan inay ka qayb galaan xafladahaas ay tagaan ee dadka tusaan xumaanta la baabay haddii kale saanay maalin kasta isku hasanayna qulubtii ay kala tagtay waxaa arkaysaa ganacsiga heshiisi ku yihiin business iskugu diran sharikay ku yihiin mawlidka marka bisha mawlid is dagaalayaan xubbiga nabiga ma isku dagaalaysiin lacagta ba isku dagaali weysiin waa mashiilo wey marka ilaahay xaqaana tus insha Allah waagii hore waxaan garanayaa waxaa laga doodi jiray mawluudku waa bidco waa bidco way qiri jireen laakiin waa bidco xasana abay ku doodi jireen waa bidco laakiin waa bidco wanaagsan halkaasay dooda ka geli jireen laakiin bahashii tagtayo hadda waxayba maraysaa bidcaba meehe quraankaaba sheegay quraankii marka aayadihiisa in lagu ciyaaro oo caamada lagu wareeriyo oo tafsiir ayna lahayn la saaro waxaaba ka cajab badanba masaajidka la yiraahdo masaajidka Sawsi maalin dhaweyd nin baa ka taagnaa wuxuu leeyahay ummad baa dhageysanaysa oo u qoslaysa ninka isaga culimani buu sheeganaya quluwiga iyo xadgudubku meeshuu gaadhay wuxuu leeyahay nabi maxamed mawliidkiisa ilaahay baaba ixtifaalayba iska dhaaf nabi lagama hadlayo rasuul iyo idinka waxaad ka hadlaysaan culimo iyo saddex qarniye hadda waxay maraysaa war ilaahay baaba ixtifaalka sameeyey kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba alla dhiirana oo geesisana oo indha adaga oo alla ka cabsi yara war waxaad ku dhiiranaysa waa rabbiga oo waxaad ku been abuuranaysa waa rabbiga oo waxaad taxriifinaysa waa qur'aankii aaway alla ka cabsigii iyo aakhiriya alla la kulmaysaa ma jiro rag iska celi iyo rabbi ka cabso meel ma wada galaan ninkaasi dagaal buu ku jira rag iska celintiibaa u cad laakiin rabbi ka cabsi meeshaba uguma jirto war xaggee baa rabbi ixtifaal ku sameeya mawliidka wuxuu yidhi buu yidhi rabbi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي ملائكتي سا نبيك كصلين يسير مسلمين تي ونبيك كصليا وكان موليدك أوداتك كردك إن إلهي احتفال كسميب عاميك مسلم كعادك أمرك الله شيء قول لي إذا إلهي بنبيك كصليا أديك أنا صلي بالله فري إيه موليد ويأكل الدوانته وذات كاس لكن وحى هرفر ليه قلقوا عقوشودي مسكحدودا ku ciyaari karo fastakhaffa qawmuhu faata'uuh innahum kanu qawman fasiqin aqligaagu mar haduu aqli yaryahay mid aan ku dhaamin ba adiga dhanba isaga ka ciyaari oo aayada intuu soo dalishado ahadiiskeena ku wareerin oo intuu abur kiciyo isaga ka dhigahayay nin balaayo wax keenay markaas uu ku duufsanay halkaas ay maanta mareysaayo rabbiba in la yiraahdo asagaaba ixtifaalay bay maanta la maraysaa raggii bahasha taageeri jiray wax ka daranna waa laga sugayaa nabi maxamed maalin ku noolaa wixii ilaahay loogu dhawaan karay oo jiro diin aha waxa unba maantana diin noqon kare wax ka dambeeyay ummadan diin uma noqon karo ilaahu ninka sheekha ugu caalimsan muslimiinta muu keeno ilaahumma culimo badan intay isu tagaan keenaan oo ummadda u keenaan war maalinka ma jiray miisaanku waa ka maya hadeer meesha la aadaysan idinka garanay innagana bishii mawlid marka la gaaro inaga dhexdana isku khilaafayno nabiga arrimihiisi xageena aadayna macna marka maxaa la rabaa bishan inay noo noqoto bishii maxabada bishii is aruurinta bishii is jacaylka laana nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa waa wada jecelna laana qof aan nabi jeclaaninba muslimba ma aha wax kaan si ma jiro salaada aan tukanayno adxiyaadkii waa in salliga lagu soo daro haddii xataa la geeriyoodo oo tacsiig qof aan ku tukanay janaasada markaan faatixada akhrino nabigi aa ku xiga allahumma salli ala muhammad wa in lagu salliyo haddii qofka la duugo oo qabriga la geliyo su'aalaha la weydiinayo markii ilaahay la weydiiyo kadib mar rabbuka markii la yiraahdo wama nabiyuka aa ku xigta marka ruuxu nabi diidan ma jireen farsamo kale ayna hayseen aan si tartiib ah intaan u hadalno aan jacaylkii nabiga aan jeclaanay innagana isku jeclaano laana suurtagal ma aha inaad ilaahayna jeclaato rasuulkiisana jeclaato intii ilaahay rasuulkiisa kula rumaysnayd ee walaalaha ahaan aad jeclaan weyso faransiiska ma aadeen marka xagee aadeen adiga marka waxaan rabaa muuminiintu inay iskaashtaan inay walaalo ahaadaan ayagu inay isjeclaadaan saasaa loo baahanyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala ummaddeena khayrka ha waafajiyo siirada iyo ka sheekaynteedana sabab ha inoogu noqoto
inaan soo ceshanno cizzadii muslimiinta ilaahay jiray laanna nabiga sal allahu alay wasalam xilli wuxuu imaaday bini aadamka oo dhan ay khatar ay ku sugan yihiin ilaahay baa ku badbaadiyey bini aadamka siiradiisii iyo jidkiisiina wuu inoo yaallaaye innagoo walaalaha soomaali oo muslima intaan tartiib u wada hadalno aan dhahno saas aan yeelno saas aan yeelno saas aan yeelno nabiguba saasuu yeelay kadibna aan waddankeenna suu nabad u noqon lahaa aan ka wada shaqayno mawliidka soomaalidu waxaan ka hadlaynaba maaha anu dee waayahan meelaha lagu dhiga ma tegine kii aan soo gaadhnay naqiinay hana idaacadaha iyo warbaahinta isagoo laga qaadaya maqallo islaamnimaba maaha ka soomaalidaan ka hadlaya bidaybac iyo barsanjigana waxa la qaado shirki miidhan wey isagoo keligii oon waxba lagu darin yaaman lahayn bidco weeye kan soomaalidu shirki wey inuu yahay dee ninkaan aqoon baa loo digdigiyey damdhaha annagu mawliidkana waa naqaan dabeec iyo barsanjina waa naqaan burdi iyo hamziyana waa naqaan